qaar kamid ah mudanayaasha Golaha Wakiilada Somaliland ayaa waxay keeneen mooshin ka dhan ah Haamaha shidaalka kaasi oo ay sheegeen in ay muhiim tahay in lagu soo celiyo gacanta dawladda Haamaha shidaalka haddaba xildhibaan Naasir Cali Shire oo kamid ah mudanayaasha Golaha Wakiilada Somaliland isla markaasina gudoomiyaha gudoosaadka ilaalinta hantida qaranka ayaa waxa uu maanta qaybo kamid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in gacanta dawladda lagu soo celiyo Haamaha shidaalka sidoo kale waxa uu warbaahinta u sheegay in maalinta Sabtida ay Horkenay doonaan Golaha Wakiilada Somaliland xeerkaasi ka dhanka ah Haamaha shidaalka si mudanayaasha Golaha Wakiilada waajibaadkooda u gutaan Naasir Cali Shire oo murtaasi ka hadlayna waxa hadaladiisa kamid ahaa runtii arrinka aad sheegtay waa dhab weeye waxaa jira mooshin Golaha Wakiilada ee Jamhuuriyadda Somaliland ay wadaan oo ka dhan ah Haamaha shidaalka waxaana runtii ku qotontaa warbixintii gudaheeda ay hor u soo bandhigtay iyo golaha markii horeba diiday markii la wareejinayay 2015 marka iyadoo taa laga duulayo si loo sugo amniga qaranka ee dalkan Golaha Wakiilada waxay wadaan mooshin ka dhan ah in gacanta lagu soo celiyo dawladda koorankii loogu talagalay wadhay waxaana golaha la horkeenaya maalinta Sabtida waxaan ku sheegay in markii la wareejinayaba Golaha Wakiiladu ay arkayeen khatar fara badan oo arta ku gadaaman tiibaana maanta cadaatay oo soo dejisay in mar labaad haddana goluhu ku doodo in laga wareejiyo gacanta dadka profit-ka waxa noqotay meel profit ah waana khasaare ugu weyn waxa soo gaaray dadka oo shidaal antiisi ficil ayaa lagu shubay isla markaana waxa ay dhici kartaa xataa laabkana dawlad gacanta kuma hayso Haamahana gacanta kuma hayso waa laba meelood oo profit weey marka waxa loo baahan yahay gacantii saddexaad oo dawladda noqonayso oo sugi lahayd waxani amniga qaranka iyo dadka siisi waxaan yahay hawsha marka taas ay soo dejisay runtii mar labaad in goluhu ku adkaysto in soo ciyaartay tanaysa soo taraya ayaa waxay imaanayaan kadib markii uu soo galay shidaal xun dalka kaasi oo khasaare baan u geystay dhammaan bulshada ku nool guud ahaan Somaliland boqor Axmed Cabdi RTN TV Hargeysa.